Assalaamu calaykum waraxmatullah. China waa waddanka adduunka ugu dadka badan, ahna meel lagu sameeyo alaabo badan oo dunida laga isticmaalo. Meel walba aad adduunka ka joogtid waa hubaal inaad aragtid alaab ay ku qoran tahay Made in China ama China ayaa lagu sameeyay. Shirkadka adduunka ugu waaweyn oo dhanna warshado ayay ku leeyihiin. Iyadoo ay saasi tahay ayaa haddana waxa aad ugu badan in lagu sameeyo waxyaalo fake ah ama aan tayo fiican lahayn. Maanta marka waxaan soo qaadan dhowr alaabood oo cunooyin u badan oo la helay inay yihiin waxyaalo khatar ah oo caafimaadka dib u geysan kara. Tusaale ahaan labadan hilib midkood ayaa hilib ido, halka kan kalena yahay hilib jiir ama dooli oo loo ekaysiiyey hilibka idaha oo loo gadayo inuu yahay hilib idaad. Isku day inaad kala garatid kee ayaa ah hilibka idaha, ma A mise B. Intaan jawaabta sheegin marka hore aan ku hormaro sheeko kale oo la xiriirta China iyo dameerada. Dameeradii Afrika ayaa waxaa waayadatan faraba'an ku haya China iyada oo la sheegay in China sanad walba isticmaasho haragga 4 milyan oo dameer. Taasoo keentay in China ay ka daldalato dameerada wadamo Afrikaan ah oo fara badan, markaas oo dameerada intii la qalo haraggooda lagala baxo oo loo dhoofiyo China iyada oo lacag fara badanna la siisto. Arrintaas ayaa waxa ay sababtay in 9 dawladood oo Afrikaan ah ay mamnuucaan in haragga dameerada la dhoofiyo. Laakiin wadamada qaarkood ayaa waxaa ka furan meelo lagu qalo dameerada sida Kenya iyo Ethiopia oo shirkado Chinese ay ka furteen kawaano lagu qalo dameerada. Markaas kadibna haraggooda loo dhoofiyo China. Haddaba waa maxay sababta ay Chinese-ku u daldalanayaan haragga? Jawaabta ayaa waxay tahay waxa ay ka sameeyaan haragga dameerka waxay ku sheegeen inuu dawo yahay, iyagoo aaminsan inay cudurro badan daweyso. Waana mid ka mid ah khuraafaadka ay Chinese-ku aaminsan yihiin, iyagoo dawadan isticmaali jiray kumanaan sano. Haddaba markii aad u yaraadeen dameeradii China joogay ayaa waxa ay u soo jeesteen inay ka soo dhoofsadaan wadamada Afrika. Markaan ka soo gudubno waxa ay Chinese-ku dawo u arkaan, aan ka hadalno arrimo la xiriira cunooyinka aan tayada lahayn oo mararka qaarkood dhimashooyin keenay ay China gudaheeda. 2008 ayay ahayd markii 6 carruur ay u dhinteen caano ay cabeen. Caanahaas carruurta oo ay samaysay shirkadda ugu weyn China ee soo saarta caanaha ayaa waxa ay caanihii ku dareen maado la dhaho melamine oo budacad ah laakiin balaastigada lagu sameeyo. Kiimikadaas ay caanaha ku dareen ayaa waxa ay keentay in carruurta yaryar kelyahooda ay dhagxaan ku samaysmaan, iyadoo qaybtoodna u dhinteen dhibaatadaas kelyaha ka soo gaartay. Fadeexadaas ayaa waxa ay sababtay in wadamo badan oo ay joojiyaan inay China ka soo dhoofsadaan caanaha iyo cunooyinka. Arrintaas ayaa iyaduna waxa ay keentay in dadka Chinese-ka iyaguna ay caanaha carruurtooda u doontaan wadamada dariska ah ama kuwa reer galbeedka. Iyada oo dadka dibadaha ka soo laabta waxa ugu badan ay soo qaadan jireen marka ay u soo noqonayaan China ay tahay caanaha carruurta. Arrintaas oo ilaa maanta saameynteedii la arki karo. Dhacdo kale ayaa iyaduna waxa ay ahayd markii la helay suugo ama iidaan laga sameeyay timaha dadka oo wadamada kalena loo dhoofin jiray. Markii ay arrintaasi soo shaac baxday ayaa waxa ay China mamnuucday in timaha dadka sidaas loo isticmaalo. Waxa iyaguna in la feegareeyo aan ka badbaadin dawooyinka sida kaniinada iyo cirbadaha. Iyada oo sanadkii 2006 ay China laysansigii shaqo ka qaaday 160 shirkadood oo dawo ah kadib markii ay dad dhowr iyo 10 ay u dhinteen dawooyin khatar ah oo lagu duray. Markaan u soo gudubno cunooyinka loo ekaysiiyey waxa aysan ahayn ayaa dhacdooyin badan ka soo caanbaxeen China, sida ukun laga sameeyey kiimiko la isku dardaray iyadoo ay fududahay in qofku garto inaysan ukun dabiici ah aysan ahayn. Laakiin mararka qaarkood waa adagtahay in la kala garto wixii saxda ahaa iyo wixii loo ekaysiinayay, taasoo keenta in dad badan ay kala garan waayaan. Sida hilibka xayawaano kala gedisan loo ekaysiiyo waxaysan ahayn. Sida markii booliiska China ay qabteen 20,000 oo tan oo hilib jiir ama dooli ah iyo xayawaano kale isugu jira oo loo ekaysiiyey hilib idaad. Adigu ma kala garan kartaa labadan hilib keebaa ah hilibka idaha? Jawaabtu waa A oo bidixda xiga. Waxaana lagu kala sooci karaa in baruurta iyo hilibku isku dhagan yihiin oo ay is haystaan, iyadoo hilibka jiirka iyo baruurtiisu si tartiib ah u kala soocmayaan, halka hilibka idaha iyo baruurtuna isku dhex jiraan. Hilibyada waxa ay yihiin beenta laga sheegay idaha kaliya kuma eka. 2013
ayay ahayd markii 6 kawaan la xiray oo ku yaalay gobolka Shanxi kadib markii la helay inay hilibka doofaarka kiimika intay mariyaan u gadayeen inuu yahay hilib lo'aad. isla sanadkaas ayaa waxaa la soo helay kawaano lagu qalo bisadaha oo loo iibgeynayay inay yihiin hilib bakayle. China ayaa adduunka waxyaalo badan u dhoofisa, waxyaalo badan oo fake ahna waa lagu sameeyaa, inkastoo ay dawladdu ku dadaasho in la ciqaabo ciday ku hesho iyagoo arrimahaasi ku kacaya. Tusaale ahaan caanabooraha carruurta ee kiimikada lagu daray ayaa 2009kii 2 qof oo dadkii mas'uulka ka ahaa laga xukumay dil toogasho, iyagoo dad badanna lagu xukumay xabsi daa'in. intaas noogu joogo barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono. nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullah.